Because of your existence, two beautiful, innocent lives were denied a full life. sheekada Cameron Heerin dilaaga qurxoon in badan oo idinka mid ah waxay raadinayaan sheekada Cameron Heerin sheekada dambiilaha qurxoon waana magac uu ku caanbaxay baraha bulshada waana kadib markii ninkan dhalinyarada ah ee u dhashay Mareykanka arrinkiisa ay buuq badan ka dhalisay baraha bulshada xilliyadii u dambeeyay iyo doodo waaweyn gaar ahaan mareegada Instagram iyo Twitter waxaana la tilmaamayaa in ay soo caanbaxday kadib markii ay maxkamadda si rasmi ah u dhawaaqday xukunkiisa kaasoo ah inuu xabsi ku qaadan doono muddo dhan 24 sano oo dhameystiran waana kadib markii wiilkan yar ee quruxdiisa gabdho badan la ilmeeyeen uu sababay geerida haweeney da'yar iyo gabadheeda oo 12 jir ah xilli ay gooniyeen mid ka mid ah laamiyada Florida waxaan idin faahfaahin doonaa sheekada wiilkan dhalinyarada ah sheekada ninkan dhalinyarada ah ayaa bilaabatay xilli uu si xawaare sare ah ku goynayay wadada isagoo wata gaarigiisa Ford waliba xawaare ay sharci darro tahay in loo adeegsado laamiyada caadiga ah marka loo fiiriyo sharciyada wadooyinka waxaana kadis laamiga u soo galay haweeney 24 sano jir ah iyo gabadheeda oo 12 jir ah waxa uu duqeeyay labadooda kaasoo sababay geeridooda waliba si degdeg ah arrinka Heerin waxay timid kadib markii wiil ay saaxiibo ahaayeen oo loo magacaabo John ay go'aansadeen inay ku tartamaan wadooyinka dadka caadiga ah ee magaalada Tempe ee gobolka Florida tartankaasoo ahaa mid sharciga baalmarsan sababtoo ah tartamada sharciga waxay leeyihiin wadooyin loogu talagalay dadka caadiga ka ilaaliya inay u soo dhawaadaan si aysan uga dhicin wax khatar ah laakiin midka Heerin ay saaxiibkiis ma lahayn wax qawaaniin ah marka Heerin falkan uu geysanayay da'diisa waxay 18 sano taasoo kaliftay in maxkamad la soo taagi waayo loona maxkamadeyn waayo dilka uu u geystay Jessica iyo cunugteedii yareed ee Lily oo 12 jir ahayd wuxuuna dalbaday Jessica ninkeeda inuu cadaalad helo ciqaab adagna loo mariyo Heerin taasoo dhab ahaan dhacday Cameron Heerin waxaa garka loo geliyay xabsi ka badan intuu dunida joogay taasoo ahayd 24 sano halka saaxiibkiis ee lagu magacaabay John asagana lagu xukumay 6 sano oo xabsi ah arrinka xiisaha leh waa kilib laga duubay Heerin marka uu xukunka ku dhacay kaasoo xambaarsanaa dareen gaar ah iyo asagoo la arkay asagoo si xawli ah dareemihiis u soo jeediyay kadib markuu maqlay xukunkan oo marna uusan filaynin haddaba daawade adigu maxay kula tahay xukunka Heerin ma yahay mid si cadaalad u dhacay mana yahay nin u qalma ciqaabta xukunkan mase waxaad ka mid tahay dumarka u ilmeynaya ee wax walba ku iloobay quruxdiisa mase tahay quruxdu mid cadaalada ka badbaadin karta iyo falalka uu geystay